agaasimaha barnaamijka shaqo qaran ayaa magaalada Berbera ku soo xiray kulanka wada tashiga wajiga labaad ee barnaamijka shaqo qaran oo muddo 2 cisho ka socday magaalada Berbera kulankan oo loo qabtay barasaabada dalka iyo qaar ka mid ah sidooyaasha laamaha dawladda gobolada Soomaaliland ayaa waxa ku sugnaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland waxaana ugu horeyntiiba ka hadlay agaasimaha barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan Mu'adinka waxaanu si rasmi ah u shaaciyay waqtiga rasmiga ah oo bilaami doono wajiga labaad ee barnaamijka shaqo qaran shaqooyinkii aynu soo qabanay dafcadii koowaad qaranka oo dhan baa ka wada qayb qaatay wax qof ku koobanna ma ahayn runtii ma hadda ilaahay ka dibna madaxweynaha aad ugu mahadsan inuu dadaalay oo hagar baxay sidii uu suurtageli lahaa barnaamijkaas u bushaareynaya dhammaan dhalinyarada Soomaaliland ee jaamacadaha ka soo baxay ee danaynaya inay ka qayb qaataan dafcadda labaad ee barnaamijka shaqo qaran in laga bilaabo 15 bisha January ay bilaamayso qabashadii codsiyada gudoomiyaha gobolka Saaxil Jineer Axmed Cismaan Xasan iyo qaar ka mid ah barasaabada ka soo qayb galay kulankan ayaa soo dhaweeyay kulanka labaad ee barnaamijka shaqo qaran waxaan la qabaa barasaabada iyo ragga hadlay oo dhan in barnaamijka shaqo qaran oo qaybtiisii labaad sanadkan maanta ay noo fadhin oo hadda bilaamaya waxaan la qabaa in dhammaanteed aynu ka soo wada hawlgallay mahadnaqa koobaadna ay tahay fikirkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi dhalinyarta gobolka Saaxil waxaan leeyahay ka faa'iideysta jaaniska 10 maalmood hay isdiiwaangeliyaan waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi fikirka iyo himilada wanaagsan ee uu qaranku soo kordhiyay ee ballanqaadkii siyaasaddiisa ka mid ahayd ee hirgalay barnaamijkaas waa barnaamij lagu najaxay sanadii labaad baan ku jirnaa oo maanta aan sii soconaa ilaahay waxaan ka baryaanaa in uu sidaa inoogu sii wado aan runtii halkan uga baaqayaa ardayda kala duwan ee jaamiciinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay iyaguna ka faa'iideystaan mar haddii jaaniskii hore raggii uu dhaafay iyo hablihii uu dhaafay inaanu jaaniskan dambe aanu dhaafin ee ay ka faa'iideystaan aniga oo og runtii mashruucani kalsoonida uu ku beeray ardaydeennii jooga dhammaan gobolada oo dhammi dhalinyarada way isku xidhan tahay halka waxa ka soo baxay xidhiidh iyo runtii isdhexgalkii dhalinyarada iyo inay maanta uu saaxiibo ku leeyahay inanka reer Boorama hadii uu sanaag tago iyo hadii uu sool tago dhalinyaradii ay ku wada jireen muddada tababarka ay isbarteen runtii waa barnaamij faa'iidooyinkiisa aan la soo koobi karin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Cateeye ayaa ka hadlay muhiimadda uu barnaamijkan u leeyahay dhalinyarada Soomaaliland dhalinyarta iminkan iyagana u bushaareynayna u tartamana dhammaan Soomaaliland waxaan u sheegaynaa 15 January sida agaasimaha shaqo qaran idin sheegay ilaa 25 January 2020 inay sida ugu dhaqsaha badan nin walba u soo waxaraysto gobolkiisa sideeda gobolada lagu dhawaaqay shaqo qaran ka qayb qaadanaya ee dhammaan hoos tagayaan degmo kasta iyo tuulo kasta oo dalka kamid ah waxaan leenahay dhalinyarta reer Soomaaliland yaanay dhaafin waa fursad qaaliya oo dalkiina aad khidmadiisa u qabanaysaan intaasi kadibna mas'uuliyiintan ayaa waxa ay kormeer ku soo mareen dhismaha dekedda cusub ee magaalada Berbera iyo guud ahaanba shaqada ka socota dekedda magaalada Berbera xarunta akhriska ee magaaladaasi xaafadda taariikhiga Moscow waxaana halkaasi ka hadlay mareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo ku dheeraaday shaqada xawliga ka socota dekedda magaalada Berbera iyo halka uu marayo dhismaha dekedda cusub ay gacanta ku hayso shirkadda maalgashiga DP World maanta waxa sharaf weyn noo ah in barasaabadii gobolada Soomaaliland oo dhammi ay soo booqdaan dekedda Berbera mar labaad waxa kale sharaf noo ah inay la soo kulmaan maanta oo taariikhdu tahay 13 markabkii ugu weynaa ee ku soo xidha dekedda Berbera oo ay indhahooda ku arki doonaan iyo ballaadhinta ka socota dhismaha dekedda gudoomiyaal ku soo dhawaada sida ku wada arkaysan indhihiina qaybtaas waa qaybtii dhismaha wiishka dubaha ayaa ku qaraacaya biraha waaweyn بايلسكاسي 3 متر weey midkiiba dhararkii 23 mitir ciida la hoos marinaya si loo adkeeyo dekedda 400 container terminalka waxa loogu tala galay si ay u yimaadaan mothershipka dhankoodana xogayaha dawladda hoose degmada Berbera Cabdikariin Aadan Saciid Cabdikariin Aadan Cadde iyo barasaabka gobolka Saaxil Jineer Axmed Cismaan Xasan ayaa mas'uuliyiintan uga xog waramay guulaha mashaariiceed ee ka hana qaaday guud ahaanba gobolka gaar ahaana meelaha idin soo tusnay ee aan rabno inaad aragtaan waxa weeyaan waxa kamid ah xaafadda Moscow iminka aynu joogno waxaanu maanta idin tusnay xaafad qadiima oo gabowday laakiin waa xaafad taariikh weyn leh
qorshaha maamulka gobolka iyo degmada isku duubanna ay ka leeyihiin qorshe aad u ballaaran nimanka waa aragteen laameedii inaanu soo saarnay oo aan xoqnay waxaa kaloo aragteen inaanu dhiraynay daba iyo dacal dhammaanteed oo ay dhiraysan tahay waxaa kaloo idin tusnay inaanu rinjeeynay oo aan rehabilitation ku samaynay waxaanu ku xidhnay mudanayaal solarkii oo leyrhkiina waa arkaysaan waxaa weli noo qorshaysan in laamigii la dhigo waxaa kaloo noo qorshaysan dhasbiinadii in la keeno runtii haddii aad maqli jirteen oo laydin lahaa DP Well waxba kumay soo kordhinin berbera waa idinkaa arkay waad ka markhaati furaysaan qaranka dekadda caalamiga ee dhismaheegu hadda gabagabada ku dhow yahay la filayo 11 bilood in lagu dhammaystiro qaybtan hore ee 400 mitir khaasatan dekadda weyn oo runtii maanta maareeyaha dekadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii nasoo tusay mashruucan u ballaaran ee 400 mitir lagu ballaarinayo dekadda runtii aad baan u bogaadinaynaa horumarka ka socda horta waan ku faraxsanahay maareey doorta waxumaagalnimada tusina waxaan tusay wax cabcad dadkuna waxa weeyaan kuturkuteentuna wax la dhageysan kara maaha annaga dhammaan waxaan ka markhaati furaynaa annagoo shacabka matalayna inuu wax horumar ballaaran ka socdo waxumaagana maaha waxaad arkaysaan lana taabsiinayo maareeyaha shaqada hayana waan uga mahadcelin waxa weeyaan waa dad isku fikira waxay ku gaareen horumarka waxa weeyaan halka fikiray wada leeyihiin iyo shaqada waqtigeedii ay joogaan iyo karti ballaaran u leeyihiin maha ammaanaan iska ammaanayno oo aanay lahayn waxa weeyaan indhaha macalina maslax salabaaside telefishinka Ariel Berbera